si guud marka macdanaha loo eegayo ganacsi galka ah laba qaybood ayaa loo kala saaraa. maanta waxaanu gaadhnay reer Soomaaliland haddaynu nahay waqtigeena loo soo bixi lahayn maxay ahayd kheyraadka dalkeena ku jira si aynu uga baxno fuqarada iyo maxay ahayd shaqo la'aanta. waxaan nahay wadan hodana dal hodana dadkiisu laakiin ay cayd ka yihiin waxa ay hodan ku yihiin waa macdantaas dad badan baa imaka aad uga shaqeeya macdanta waanu dhiirigelinaynaa. aan jecelahay inaan dadweynaha ku booriyo in ay dhexda u xidhaan oo ay ku dadaalaan inay gacan buuxda siiyaan wasaaradaha ku hawlan wax soo saarka oo ay ka mid tahay wasaaradda macdanta iyo tamarta. Soomaaliland waxay hodan ku tahay macdanta noocyadeeda kala duwan gaar ahaan dhagax macdaneedka loo yaqaan Gemstone waxaana loo adeegsadaa warshadaha iyo qurxinta inkastoo aanay jirin baaris iyo sahamin caalami ah oo dalka gudihiisa laga sameeyay balse waxaa jira xogo muujinaya in kheyraadka macdanta Soomaaliland ay qani ku tahay. dhulkeena waxa ku duugan macdan aad u tiro badan oo aan koobiya laba lagu soo koobi karin haddii se aan ku soo gaabiyo inaanu ablaableeyo laba qaybood waxaan ku soo gaabin lahaa nooca industrialka oo boqolkiiba 99 dhulkeena hareeyay oo aad ugu tiro badan kuwa aad u qarsoon iyo kuwa muuqdaba iyo nooc la yiraahdo Gemstone oo ah nooc macdan oo kulli aad u qaaliya dhulkeenana aad ugu tiro badan siiba qaybaha buuraleyda kuwaas waxay u badan yihiin macdanahan lagu naqshadeeyo dahabka ama faska looga dhigo nooca Gemstone-ka iyaga laftarkoodu isku wada qiimo maaha oo way kala qiimo badan yihiin oo waxa la yiraahdaa nooca qaaliga iyo nooca qaali ku xigeenka ayaa loo kala saaraa kuwa inta ayaan ku soo koobi lahaa. nooca industrialka laftarkooda laba ayaanu si kala saari lahaa noocyaal badan oo waxa jira industrial una badan biraha laftarkooda waxa u kala baxaan nooc la yiraahdo biraha qaaliga ama precious metallic iyo biro jaban. waxaynu nahay wadamada qaniga ku ah macdanaha kala duwan ee Allah ku minaystay si guud marka macdanaha loo eegayo ganacsi galka ah laba qaybood ayaa loo kala saaraa. qayb waa qayb Gemstone-ka ama dhagaxaanta la yiraahdo muxuu ahaayay la isku qurxiyo. qaybta kalena waa macdanta laga minguuriyo alaabaha aynu isticmaalo haday noqonayso kombiyuutarada haday noqonayso agabka kale ee dadku ay u baahan yihiin. macdantaasina waxa la yiraahdaa si guud marka la isku qaado industrial minerals. runtii waxaan oran karaa wadanka Soomaaliland waxa weeyaan waa coverland waa wadan aad ay covertu ugu badan tahay waana waxyaabaha warshadu aad u isticmaalaan oo loo baahan yahay in la soo saaro oo kambaniyada la dhiirigeliyo oo caalamka laga iibiyo. dekada Berbera hadaynu dhigno inta la soo saaro cid walba way ku imanaysaa way ka iibsanaysaa. xagga macdanta warshadaha aad bay qani ugu tahay coverta kamida columbite-ka kamida titanium-ta kamida waxa kamida cobalt-ta kamida nickel-ka kamida noocyada biraha ayaa kamida iyaduna oo feerada ah oo u kala baxay noocyo tiro badan ayaa kamida
macdamaha reerka ah ee biraha ah ayaa ka mida iyaduna oo waddanku uu leeyahay dahab aad u fara badan buu waddankeenu leeyahay oo ilaa 11 goobood waanu ka saambal garaynay in dahab ku jiro waanu aad buu tira badan yahay platinumka ka mida iridiumka ka mida rhodiumka ka mida macdamaha reerkiina iyaguna aad bay ugu tira badan yihiin waxaa ka mid oo kale waddanku wuxuu leeyahay oo kale uranium buu leeyahay wuxuu leeyahay macdanta thorium ta la yiraahdo cerium badan baa ku jirta waddanka oo goobo badan silsilada ku jirta waxaa jirta macdantan birta ah ee culus ee xeebaha iyaduna alufiyalka ku tagtay oo iyaduna aad u tiro badan ayaa jirta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland macdanta ku duugan oo la soo saaraa waxa ay horseedi kartaa in bulshada Soomaaliland ay helaan ila dhaqaale oo u dhigma ka xoolaha laga dheefo dalka dibadiisa loo dhoofiyo iskaashiga bulshada iyo xukuumadda Soomaaliland waa dabada koowaad ee laga faa'iideysan karo khayraadka Soomaaliland ilaahay ku manaystay siyaasadda dawladda iyo xukuumaddu waxa weeyaan in si dhaqso ah ama sida ugu dhaqso badan loo soo saaro macdanta waddanka marka hore loo sahamiyo kadibna loo raadiyo maalgelin dabadana loo soo saaro kadibna marka la soo saarana la manaafacadsado oo ummaddu ay manaafacadsado marka waxaan u aragnaa xukuumad ahaan meesha qura isbedel degdeg ah xagga dhaqaalaheena lagu sameyn karaa inuu yahay dhinaca macdanta awal tiirka dhaqaalaheenu wuxuu ahaa xoolihii waxaynu ognahay in sidii awal uu dhaqaalaha ay nooga caawin jireen dhaqaalihii nagu tirsanaa in wax weyn iska bedeleen marka waxaanu sii meesha ugu horeysa ee isbedel dhaqaale oo degdeg ah waddanka loogu raadin karaa waa macdanta taasoo aynan hore dhaqan ugu lahayn aynaan warhaynin xalaaliyo wax macdana oo aynu haysano bulshada intaan arkay oo u cararta macdanta waxa ugu badan nimanka la yiraahdo China aniga ra'yi ahaan hal system oo kaliya ay looga faa'iidi karaa waa in mesela dawladda Soomaaliland ay la heshiiso dawladda China wasaaradda macdanta ee China ay la heshiiso marka ay la heshiiso waa in tabaadil lagu sameeyo ama isku bedel lagu sameeyo maxay mashaariic nafle inay qabtaan mesela sida beeraha oo kale oo ay inoo beeraan oo inoo soo saaraan production xagga beeraha ama wadooyin ay inoo sameeyaan for example hadii la yiraahdo imka loo yacado ilaa la asqorayo kale wadada noo sameeyo China area ayaad idinkuna macdanta taal oo dhan idinku iman mayno ama dahab lahaato ama jimstone halaatay qaata intaas oo kilomitir ku jirta wadooyinka noocayna la sameeyay sida ugu dhaqso badan ay iyaguna wax inoogu qabanayaan inaguna aynu uga faa'iideynaa iyaguna ay u macaashayeen Soomaaliland waqtigan waxaa ku sugan shirkado kala duwan oo macdan baaris iyo qodis ka wada gaar ahaan gobolada Soomaaliland qaar kamid ah kuwaas oo ruqsado kala duwan ka haysta wasaaradda macdanta iyo tamarta oo iyadu qarankan u xil saaran waxaana waqtigan ay ku awleeyihiin tacab badan ay gelinayaan sidii macdanta dhulka ku jirta ay u soo saari lahaayeen iyadoo loo oran karo muwaadiniinta reer Soomaaliland waxa ay shirkadahaasi ka helaan shaqo abuur balse wali waxay naawilayaan in mustaqbalka ay dheef ka helaan macdanta dalkooda hooyo ceegagta imika xilligan shirkada waxana la jooga ajnabi iyo shirkada Soomaali Landers iyo ajnabi wada leeyihiin iyo shirkada Soomaali Landers kaliya ay leeyihiin waxay ku hawleeyihiin ama baaritaan oo exploration license oo kii baaritaan bay sameynayaan ama waxay sameynayaan oo ay ku hawlan yihiin small scale mining ama qoditaankii koobnaa ee macdanta haddaan qaar ka mid ah sheego waxa weeyaan shirkadaha explorationka kula jira heshiisyada wasaaradda ee hawshooda imka bilaabantay waxa ka mid ah shirkad laba gobol hawl ka wada gobol hawshiisa way bilaabantay gobolka Saaxil degmada Mandera ay ka wadaan Roblan Mining Company baa la yiraahdaa insha Allah gobolka awdalna hawshoodii waan ku jirnaa dhawaan iyaguna hawsha ka bilaabi doonaan haddii Allah yiraahdo waxa kale oo iyagana shirkad kale jirto iyaguna heshiis sahana kula jirta oo insha Allah iyaduna hawsheeda ka bilaabi doonto gobolka awdal
dhinaca macdan qodista kooban haddaan bilaabo waxa weeye kombaniyo dhowra oo isugu jira muwaadiniin iyo qaar ajnabiya iyo qaar shuraaka lagu yahayba ayaa iyaguna hawsha ku howlan waxaa ka mid ah 3 shirkadood oo ka wada qodista dhagaxa jeedka la yiraahdo ama macdanta jeedka la yiraahdo gobolka Togdheer degmada Fiqi Ayuub 3 company waxaa la kala yiraahdaa Big Rock Mining in African Mineral Company iyo Al Khayrat Mining Company in muddo hawsha ay ku soo jireen kaamamkii waa la dhameystiray shaqaale qoristii waa la dhameystiray hawsha bilowgoogii koobaad wajigii koobaad bay ku jiraan waxaa iyaguna sidoo kale jira 2 company oo kale oo ay leeyihiin muwaadiniin oo macdanta iyaguna hawshooda ku jira macdanta dahabka labaduba waxa weeyaan waxay ku jiraan labaduba waxay joogaan gobolka la yiraahdo Sanaag hawshoodina waa imikun bay bilow tahay waxa jira shirkad kale oo la yiraahdo Green Gemstone iyaduna waxay ku howlan tahay emeraldkay ku howlan tahay gobolka Awdal aan yiraahdo ayay iyaduna ka shaqeysaa waxa jira 2 company oo kale oo iyagana muwaadiniin ay leeyihiin labaduba gobolka Saaxil mid waa Gypsum midna waa Heavy Mineral Sand labaduba laysanada macdanta kooban ay haystaan hawshiina imika waa u bilow Maama Mining Company baa la yiraahdaa magacayaga shirkadda waxaan ka soo shaqeynay galbeedka gobolada Awdal iyo gobolada bariga labadaba waan ka soo shaqeynay muddo ilaa 2008 ilaa imika waxaan wadnay sarfeeye badan oo kala duwan oo aanu ogaanaynay macdamaha ku jira dalka inta aanu maray 4 gobol oo ay noo dhibayeen 2 gobol oo kaliya runtii macdanta ku jirta dalkeenu aad bay u tira badan tahay waana dalalka ugu qaniisan xagga macdanta ayaan oran karaa intaan adduunyada soo aragnay South Africa Seyruwan ka soo shaqeeyay anigu laakiin waxaad oran kartaa runtii wadankeenu waxa weeyaan wadan aad iyo aad ugu qaniya macdanta warshadaha iyo macdan quruxeedka waxa la yiraahdo labadaba Gemstone-ka waxaan wadnaa shirkad tacabadaag la yiraahdo oo ah macdan baarisa shirkadaas way timi waxay joogtaa mayd waxayna ka shaqeynaysaa dahabka noocan iyo macdano kale maxay tahay lasgoolka dadka shacbiga ahna waanu wada hadalay arrinkaas raalli bay ka yihiin dawladuna sharcigeedii iyo liisankeedii iyo nidaamkeedii wuu u leeyahay waxayna wax u taraysaa macdanta iyo shaqadaas dadka shacbiga ee ku nool waxaan ahay chairmanka shirkadda Tacabwadaag Mining Company runtii shirkadana aniga aasaasay inkastoo deerar kale igula jiraan runtii anagu iminka maano shirkadda maan keenine 3 sanadood sanadkii afraad baa ii socda intaan Sanaag iyo buuraheeda aan ku wareegayay ee baarayay runtii guulo badan waan ka gaadhnay dahabka aad iminka og tahay dadkoo dhami ka faa'iideeyay la qoday god aanu qodnay baa Ilaahay sabab uga dhigay in la fahmo annaga laftaydu annagu aan fahansanin markii hore negadka godkii aanu qodnay baa dhowr kiilo negada laga helo sidaas dahabka lagu fahmay waxa soo hawl ah waxaan u soo galay inaanu halka macadaad iyo qalab waaweyn keeno in ay dadka aanu dhiiri gelino wadankuna kaliya nooma xidna 10 shirkadood iyo 20 iyo 30 baa u qaadaya anigu maadaama aan in badan waxa ka shaqeynayay oon xogogaalahay halka aanu joogno ee imika meed dhinaca bariga iyo galbeedka iyo waqooyiga badda mooyee inta kale oo dhan waa warhaynaa intaba waxa ku jirta wax wacan oo laga shaqeyn karo marka anagu runtii waa noo horseednay una dadka kaliya ma nihin waxaanu dadka u keenayna waa wanaag ilaahayna waxaanu ka baryaynaa oo ka rajaynaynaa inaanu annaguna ku guulaysano dadkuna ay ku guulaystaan oo ka faa'iidaan ugu baaqeynaa inay sharciga ay ku raadsadaan iyadoo xukuumadoodu ay la barbar taagan tahay hiil iyo hoobo waxay ku tari karto waayo khayraadka waxa ka faa'iidaya sida looga faa'iidi kara waxa weeyaan iyadoo la soo baxo cid kasta ha soo saartay waxaana ugu muhiimsan inay soo saaraan muwaadiniintu
ilaan ajnabi waa xoog ka saarayna inay soo saaraan marka muwaadiniinta waxaan door bidaynaa inay xoogga saaraan in ay qaab sharci ah oo u sahlaya sahamintooda oo u sahlaya la soo bixista macdanta iyo qoditaankeeda oo u sahlaya ama u fududeynaya sidii maalgelin loogu raadin lahaa iyaga taageera waxaanu sheegaynaa qolyaha macdanta ku shaqo leh qaabka sharciga ah ku soo dhawaada oo mara wacyigelin dhammaystiran oo bulshada Soomaaliland la siiyay waxay door muhiim ah ka qaadanaysaa isla markaana yareynaysaa faham la'aanta bulshada Soomaaliland ka haysata muhiimadda ay leedahay macdanta dhulka hoostiisa ku duuganay waxaana meesha ka baxaya muranada inta badan ka yimaada goobaha macdanta laga baarayo waxa xaq u leedihiin waxa ummad oo dhan xaq u leedahay ba deegaankan caaladamasna xaq u leeyahay waxa xaq u leeyahay nolol wanaagsan waxa xaq u leeyahay adeeg caafimaad wuxuu xaq u leeyahay inuu helo adeeg waxbarasho wuxuu xaq u leeyahay biyo nadiif ah wuxuu xaq u leeyahay wadooyin wuxuu xaq u leeyahay wax bani aadam oo dhan xaq u leeyahay loo baahan yahay waxaanu soconnaa inaanu intaaba ka midho dhalno haddii la yidhaahdo halkaa aynu joogno inaanu ka kacno oo dadka ilaahay inagu wada abuuray caalamka aynu wax la qaybsanaabaynu ayaynu doonaynaa oo rajaynaynaa taan noo soconnaana waa taa ilaa aynu inagu wax la soo baxno wax soo saarno ka gudbi mayno ciilna ka bixi mayno ciil kama kacdo waxaanu kala go'aansanay oo xukuumaddu go'aansatay in macdanta dhulka waa la hubaado waxbaa ku jira dhulkeenaasi min bari ilaa galbeed macdan baa ku jirta la iska intaasoo kun oo sannadood la dul fadhiyay warbal inaynu ku foorarsano la soo baxno sida loo soo dhaweeyo dadka waxaan garanaya aqoonta u leh ee aqoonta wada ee dhaqaalaha wada lagu soo saarayo hadba sida loo soo dhaweeyo baa lagu kala hormaraya dalkeen waxa weeye hadii jeer xoolaheenu inta badan ka baxbishayn jiray iyo inay dukaamo furanayo dadkeen waxa weeye inuu soo abaabulo qaab uu ugu adeegayo dalkeena oo matalan ardayda jaamacadaha kale waxaan ku talin lahaa inay geology-ga bartaan maadaama waddankeenu very potential yahay inuu petrol iyo macdano kale leeyahay bulshadeennuna waa inuu diyaar garoyo iyo kambaniyadeennu loo aasaasay inaynu la soo baxno macdantaas oo shaqo abuur fiican laga helayo runtii dadkuna inay la shaqeeyaan deegaamadooda macdanta laga qodayo inaanay qabshad keenin wax ku filan baa iman doona shalay carabtu way naga liidatay inaga wadamadan khaliijka iyo wadamo badan oo imika macdanta ka dhoofiya way naga liiteen marka waxaynu dalkeenana kula talinaynaa inay ammaankana ilaaliyaan kana faa'iidaystaan khayraadka dabiiciga ah ee aan la taaban ee dalkeena ku jira maanta waxaan jecelahay inaan dadweynaha ku booriyo in ay dhexda u xidhaan oo ay ku dadaalaan inay gacan buuxda siiyaan wasaaradaha ku howlan wax soo saarka oo ay ka mid tahay wasaaradda macdanta iyo tamarta walaalayaal adduunka wuxuu dadku hore ugu maraa waa maalgashiga iyo inay dadku la soo baxaan waxa dhulka khayraadka ilaahay siiyey khayraadka ilaahayna si waa badan yahay kalluun baa ka mida macdan baa ka mida beeraha ka mida aqoon baa ka mida xirfadaha baacmisharkeenu aad u leedahay baa ka mida xog ururin la xidhiidha xaddiga macdanta dalka ku duugan oo la ogaadaa waxaa saldhig u ah maalgelin iyo qorshayaal ay xukuumaddu horseed ka tahay oo lagu ogaanayo noocyada kala duwan ee macdanta ee dalka laga helo baaritaankii durbaba waxyaabo badan baanu ku helalay documentiskaas oo ayaanu ka hadlayo in dadka at least barin la ogaado waxa waddankeena ku jira buugaagta ayaanu daabacnay oo qoray oo muujinaysa meel walba macdanta ku jirta iyo nooca ay ku jirta iyo waxaan kaasa oo soo jiidanaysa at least macluumaad ka siinaysa dadka shirkadaha dibadda iyo gudahaba wax ay ku soo dhiiradaan oo ay yaqiinsadaan inaan hordhownaano halkaa macdanta nooca iyo noocaas marka macdanta qoditaan lagu sameeyo waxaa la ogaan karayaa mitir kasta oo dhulka hoostiisa ku jira oo saamba laga qaaday xadka ama quality-ga ama tayada macdantaasi ay leedahay marka bed ballaaran la baadhana waxaa la ogaan karayaa quantity-ga ama tirada mugga inta aynu macdan ahaan aynu ka haysano
labadaa marka la isku dayro ee tayadiina la ogaado tiradiina la ogaado waxay taas inoo sahlaysaa markaa cidda macdanta qodisteeda bilaabaysa inay haystaan fikrad sax ah oo ku saabsan macdantaynu qodaynaa intay leegyihiin tababaro iyo cilmi baadhis la xidhiidha dhinaca macdanta oo dhallinyarada iyo bulshada reer somalilan la siiyaa waxay qayb muhiima ka ciyaaraysaa in la helo bulsho isla jaan qaada oo danaynaysa khayraadka dhulkooda hooyo ku duugan. waxaan ku dhiirigelinayaa dadka waxgaradka ee reer somalilan inay la shaqeeyaan wasaaradda iyo qarankaba sidii loo soo saari lahaa maxay ahayd macdanta kala duwan ee qaranku leeyahay dadka dhalinyarta maxay ahayd aqoonta macdanta baranayana anigoon soo dhaweynaa tababaraan siinaa waxaan geynaa fiilalka amba maxay ahayd meelaha ka socoto kambaniyada qodaal ka sameynayaan runtii aad iyo aad bay deeyaga laftoodu inay fiilka bartaan oo ay aaminaan dalkooda inuu macdan leeyahay inay meel kale u shaqo tagin taa lafteedana oo kala shaqeynaa waan soo dhaweynaa runtii rajo badan baan aaminsanahay inaynu maxay ahayd gaari doono sanadada dhow mar haddaynu u jeesanayno dhinaca wax soo saarka xagga macdanta in aqoonteedii oo inagu yarayd aqoonteedu aad iyo aad bay nagu yar tahay dhaqanna uma lihin marka si looga faa'iideysto waa in aqoontii la helaa marka aqoonta si loo kobciyo waxaanu taageeraa dhalinyarada ku jirta jaamacadaha ee barata geology-ga ayaanu u sameynaa fursado waxbarasho iyo practical ay ku tagaan goobaha macdanta laga wado iyo macdan baadhista laga wado halkana wasaaradana waa wasaaradoodii waxaan isku daynaa inay aad isugu xidhmaan sida loo helo aqoon-yahan xagga macdanta ah ayay ku xidhan tahay guusha ka faa'iidaysiga macdantu marka xooggaanu saaraynaa dhalinyarada baranaysa macdanta in aanu wixii aanu tari karraba tarro shuruuc iyo xeerar lagu hago macdanta dalka oo la suurtageliya waa saldhigga asaaska u noqonaya inay somalilan la jaan qaado wadamada ka faa'iidaystay khayraadka dalkooda waxaana meesha ka baxaya faham la-aanta bulshada arrintaasi ka haysata runtii xeerkan macdanta waxaa la yidhahaa xeerka macdanta dalka somalilan xeer number 2016 runtii xeerkan waa xeer aad iyo aad dalka ugu muhiima oo maxay tahay dhiirigelinaya in dalka laga soo saaro khayraadka dabiiciga ah ilaahay siiyey ee ku aasan taasoo wax ka taraysa dhaqaalaha wadanka kor u qaadaysa soona jiidanaysa runtii xeerkani waa xeer iftiiminaya oo soo jiidanaya maalgashayaasha waana xeer standard caalamiya ah oo lagaga dhaqmo dee wadamada qaar had iyo jeer dunida isku wada mid ah marka xeerarka way kala firfircoon xeerarka laftoodu sida loo ansixiyaa waxa ku xidhan inay ku soo dhiiradaan had iyo jeer maartay maalgashayaasha marka runtii waa xeer wasaaradda macdanta iyo baarlamaanka iyo waxba iska kaashadeenoo ay khubro badanna soo diristay runtii marka waa xeer aad iyo aad u muhiim ah runtii waxaan dee odhan karaa waa xeer qiimo leh kana qayb qaadanaya dhaqaalaha wadanka waayo macdan badan buu dalkeenu leeyahay sida la sheegay oo ay ka mid tahay dee chipstone ama bahalka jerka la yidhahay markay dunidu aad u jecesho electronics iyo wax laga sameeyo runtii markaas waa wuxuu u kala samaynayaa marka la soo saarayo blockiska waa la saaminayaa marka hore oo ruqsadda sahanka la qaadanayaa marka dambena dee waxa bilaabaya macdan qodistii baa bilaabaysa marka waa xeer intaas oo dhan iftiiminaya oo runtii dee dalka qiimo weyn u leh weeyaan waxaa jira iyaguna muwaadiniin buuraha u galay in macdanta wadankooda ay qotaan muddo badanna manaafacaadsanayay dhagaxa macdanta noocyadiisa kala duwan waxay adeegsanayaan waayo aragnimo la xidhiidha macdanta iyo magacyadeeda balse ma ay helin aqoon dhaafsiisan taas waayaha iyo waqtigu baray horta alxamdulillah ilaahay lagu mahadiyo wax ah hadii waxa dalkaagu oo maanta inagu filay wax walba uu ka badan yahay imika kaasi waxa soo macluumaad Soomaaliland meel kale oo laga soo qaadaa ma jirto kaas waa imar walba la yiraahdaa waa ko waxyaalaha ugu qaalisan buu ka mid yahay waa imar beeral beeralka waxa la isku yiraahdaa 5 group imar beeral akumaarayn beeral waa inta walaalaha imar beeral akumaarayn beeral hiri dool beeral morgan ay beeral hir beeral shanta ilmo beeral baa leh shantaas waa maxay waa waxa sidaan u qoran 6 girgir leh xagaana ka go'an waa family kaasi
وطن سنة تنسانيا اللي يجلس واحد بيقول له أنت صوصي حاجة تنسانيا صوصي بيقول أنت إنك كنا الله يعلم حيث يجيهن أما تسكع طفق أنك لا غون واسكون تن سنة دي أما تسكع ده وحبوا ما رحيان هاد نسكون بكلا سريان كانوا أما تس خاصوا أي مرول كلام برتوبيسة كاترولين باليرا هو هذا خورة هذا تمنى إندستري قال وتشولري وحكالنا وهي تشولري هم حكالنا إندستري هو هاي طبيعسو هذا تنس كاه كلام بيرك تنتاني يوم كيو سيلفر تيو حاسينو طبيعه فاميلي قال يرا كوارتس كو كواس ولا قبيلي هاي وكاسو كلا كو قلاو مارتا marka waa amatis quartz kuwa karo kala galay weey waa amatis kan wuxuu ka joogaa soo side baa la yiraahdo calcium buu ka abuurmay asalkiisu anagu jaamacada ma aanay tagay soo baradka kana caadi ah anagu dhignay caadi leef kaade ila dhax taagan yahay labadii qofkii markaa uu garanayn waa iskaga mid Soomaalidu wax ku maahmaada xagla laaban xoolo kuma yimaadaan haddii aan nafta la dhibin waxba lama gaarayo dhalinyarada Soomaaliland dhammaan waxaan kula talinayaa inay dhulka yarkadaan marka la kufus dhulka la yarkada ma inay dhulka yarkadaan wax kala soo baxaan kuwa dhuxusha shidana waxaan kula talinayaa inay geedaha iska nabad geliyaan hadday badda tagaan kalluun way helayaan hadday dhulkooga qodaana macdan ba ka buuxda ka gees marka waxaan kula talinayaa inay macdanta qotaan badooda kalluun doontaan nafta haydaarta ka daayaan iyo meydkooga casho walba meel boqolaal baa ku dhintay leeyeen xataan haysata intaasaan kula talinaya dalkeena soo ilaahay dhalinyaroy nimcada inaga siiyay waa dahab waa la tahriibay tahriibin baa lagu siiyay badda lagu dhamaaday ilaahay halkaasuu nimcada inaga siiyay dalkeenu sidaas u buuxaa intii aragtayna wayba aragtay inta kalena lagu soo ilhaamiyo waxaan ka shaqeynayay sanadka oo buura ah sanadkii dhamaaday goobtan aynu joognaa waa goob aad dahab ka qodayso oo maalada markii ugu horeysay aad bay u sareysay bal maxaad waxyaalay kugu leeyahay badnaad goobta ka aragtay waxaan ka arkay goobta ugu badneed goobta aad bay u badnayd goob aad u weyn bay ahayd dheeraanteeduna dheeraan aad u weyn ayay ahayd dabadeedna waxaan ku arkay calaamado aan lahayn maalooyinka kale sidaa darteed ayaan ku bilaabay maalada kuna shaqeeyay shaqadaana ku wada okay waxaan imika arkayaa dhagxaan kala jaajaada ciid kala jaajaada waxyaalo tuubooyin oo kala jaajaada oo waxaan inta badan aan dhulka lagu arkin waxa sameeyay waxa weeye maalada gudaheeda aan ugu tagnay markii aan qodnay ee dusha ka dhamaynay wixii ay dusha ka saarnaa ka dhamaynay waxaan u tagnay qodaal badan waxaan ugu tagnay ciido kala gaara oo kuba aynu hadeer aragna ah iyo kuba aanu laabnay oo dusha saarnaya ayaan ugu tagnay dhagxaan kala jaajaada walina waanu wadnaa ilaa iyo hadeer aynu taaganahay aan aragtaa laba dhibaato ayaa haysta dadka ku hawlan macdanta labada dhibaato waxa weeyaan marka hore wax tiiriya oo xagga maskaxda knowledge oo badan oo ay ka haystaan ma jirto mar labaadka wax protection ah oo ay haystaan oo lafahooda ilaaliya ma jiro marka taas darteed bay iyaguna dib waxay u geystaan macdanta laftirkeeda waayo waxa weeyaan macdantu waa wax marka ay roobabku ku da'aan maydhmo dhulku boorku ka maydhmo sida flowerka oo kale loo arko marka inta badan waxa ay jajabiyaan oo aanay aqoonin systemkii loo soo bixi lahaa macdantii sida flowerka u dilaacday ee la raadraaci lahaa iyagoo aan markaa ka faa'iideysan kareyn oo aan haynin qalabkii u jari lahaa matalan waxa jira midiya gaar oo dunida u samaysato sidan cadka matalan baruurtiya jiirka loo kala jaro u kala reebi kara dhagaxa nooca adoonisa iyo nooca aan doonin run ahaan ma yaalaan wadankeena qalabkaasi oo waa midiyo afkoodu uu dheeman yahay dabeed waxa lagu garaacaa sabarad iyo dubi taasina khasaaraha ay keentay waxa weey kow in qofkii wixii uu jajabiyo laba inaanu isaga anfacanin oo isagoo jajabo hoos si qaroodo kala uu meeshii kaga tago saddex inuu khasaariyay fiinkii la raaci lahaayee ubaxan dilaacay laga arki lahaa cid walba arki lahayd waa haduu iska dhaafi lahaa si fudud marka la sahaminayo loo arki lahaa oo de physiology-ga ama qofkan buriga jirka dhulka yaqaana buriga dhulka yaqaana uu u raad raaci lahaa ماشي حواك وشله يا حواك وشله هذا
bulshada ku dhaqan goobaha macdanta laga soo saarayo mudnaanta iyo tixgelinta koowaad la siiyaa marka laga hadlayo dhinaca shaqo abuurka waxay sees iyo saldhig u noqonaysaa in ay muwaadiniintu ka dheeraadaan wax kasta oo carqalad ku keeni kara soo saarista iyo baadhista macdanta ee waddanka laga wado. wasaaraddu waxay samaysay dadaalo fara badan dadkii danayaasha macdantu gudo iyo dibadba waxaad moodaa imika inay fahmeen sidaa daraaddeed ilaa hadda ugu yaraan 4 kambani oo macdanta kala duwan ka shaqeeya ayaa gobollada jooga. waxaa kaloo wasaaraddu dadaalo badan ku jirtaa kambaniyo kale in pipeline-ka kusoo jiraan. waxaa iyaguna aada mahadsan dadweynihii markii hore aan fahansanayn macdanta ee la odhan jiro dalkeena goorma la soo saaraya waxaad moodaa imika inay maxay ahayd wacyigelintii ay gaadhay. imika tusaale ahaan kambaniye ka shaqeeya ereyada gobolka togdheer gaar ahaan faqaayuub dadkaas markii hore iyaga gaar u isticmaali jiray halkay dadka qaarkood dhuxushoo kale isticmaali jireen ay dhagax ka ay macdanta ka isticmaali jireen laakiin imika kambaniyadii bay u shaqeeyaan waxay fahmeen in dalkii khayraadka uu ku jira iyagu ay ka faa'iideysanayaan. way Soomaalida wax ku maamulada dheri ninka ugu dhowbaa ayaa lafta kala baxa marka deegaanadii halkii Ilaahay ku abuuray macdantii laga helay wayba soo dhaweeyaan. 3 shirkadood jeerika wada ka wada gobolka Togdheer degmada Fiiqaayub shaqaalaha muruqmaalka ama xirfadda lahayn ee qorteen oo kaliya waa 210 qof oo shaqaala waxa inta dheer tiro ilaa 45 xirfadlayaal ah oo kala duwan waxa inta dheer wixii deegaanka dhaqaale lagu soo celinayay contractiskii ahaa agabyadii kala duwan laga iibsanayay waa dareemi karaysaan waxa weeyaan deegaanka Fiiqaayub iyo inta ku xeeran ceel baxay oo degmada Laasciile gobolka Saaxir hoostaga dhinacaas oo ka ilcarmo intaas oo dhan deegaanka ay intaas oo shaqaalay markay ka yimaadaan dhaqaalaha ku celiyaan isbedelka iman karaya waad garanaysaan. estimationkii ugu dambeeyay ee aanu sameynay lacag dhowr iyo 70,000 gaaraysa ayaa bil kasta ay u qaadan jireen mushahar dadka u shaqeeya shirkadahaasi. waxa kaloo iyaduna meesha ku jirta waxa weeyaan wax la yiraahdo community development oo ah horumarinta deegaanka wixii loogu talagalay iyaduna shirkadahaasi maantay production gaaraan ama soo saar gaaraan iyaguna waxa xaq sharcigu uu ku waajibinayaa in dadka loo sameeyo dhaqaale lagu horumariyo noloshooda haddii xagga caafimaadka noqoto haddii xagga waxbarashada noqoto iyo wixii la halmaala. imka anagu gudida macdintan waxaan tagnay meesha la yiraahdo Siimoodi waxaan kaloo tagnay meesha la yiraahdo Berbera buuraha iyo Faqaayub iyo ka tirsan gobolka Togdheer iyo buura iyaguna ka tirsan gobolka Saaxil oo macdanta laga qodo runtii dadka waan ka wacdi gelinay inay ajaanibka soo dhaweeyaan in dadkii wixii liig sharci u haysta ay la shaqeeyaan inay ka faa'iideystaan waana waajibaadina wada saaran dalkeena in maxay haytooyin aynu dadka ku wada wacyi gelino inaynu baranno qaabka macdanta loola soo baxo iyo inaynu la shaqeyno dadka aqoonta u leh. iminka midna waxa jira Petroleum Act oo isaga aanu doonayna soo saarno xeerkii petroolka waxa jira nin Mareykan ah oo maxay haytooyin qoray book leeyahay oil for cash article buu qoray uu doonayay inuu dadkeena yiraahdo hala siiyo lacag oo midna gobolka laga soo saaro petroolka 50% cash dadka loo siiyo 50% kala dawladda qaato yani wuxuu uga jeedaa awaana si aanan macdanta aynu la soo baxaynaa aanay dhibaato inoo keenin waayo waxaad ka warqabtaa dunida meelo badan bay dhibaato u geysataa marka shidaalka la soo saaray imika South Sudan oo kale wixii dagaalka ka riday wuxuu ahaa maxay ahayd khayraadkii la soo saaray marka bulshadeena waxa loo baahan yahay inaynu aad iyo aad uga digtoonaano khayraadka aynu la soo baxaynaa inaanu inagu keenin dhibaato weyn marka taana waanu leenahay maxay tahay qorshayaasheeda iyo wacyigelinteedaba hadii jeer waxa la doonayaa in bulsho waliba waxa leedahay contact iyo hab loogu talagalo marka waxaanu ugu talagalay dadkeena wacyigelin aad iyo aad u muhiim ah inaanu khayraadkaasi ku keenin khilaaf nabadgelyada iyo maxay tahay deganaanshaha dalka waxyeela. dhalinyaro badan oo ku dhaqan gudaha Soomaaliland ayaa naawilayay in mar uun la soo saaro macdanta Soomaaliland ceegaagta waxaana ay dareensan yihiin in ay yaray doonto shaqo la'aanta
iyo duruufaha dhaqan-dhaqaale ee bulshada iyo dhallinyaradu ay ka cawdaan. waxaanu doonaynaa oonu idiin hornimi dhallinyaroy adeerayaal hablo iyo inababa inaynu diskas garayno war maxaa waddanka ku jira la ogaado oo laga faalloodo sidee baa looga faa'iidaysan karayaa ama sidee loo soo saari karayaa dabadeedna sidee looga faa'iidaysanayaa waxaa ogtihiin nicmada ka soo baxdaa laba wejiba way yeelataa mar nicmay noqotaa laga faa'iidaysto marna niqmay noqotaa iyo musaayib iyo dhibaato waanu ku hubnaa waddanka haddaanu xukuumaddii nahay waxaanu hubnaa oo idinku bushaaraynaynaa in waddanka khayraad badani ku jiro degdegna loo soo saarayo haddii laha idhaa marka laga yimaado dadaalada kala duwan ee ay xukuumaddu wadeen la xidhiidha macdan soo saarista iyo sidii looga faa'iidaysan lahaa ma jiraan caqabado ku gadaaman sidii macdanta waddanka loola soo bixi lahaa waxyaabo badan baa inagaga baaqday caqabado aynu inagu abuuray dadku abuureen waxaan idiin sheegayaa oo nasiib darro ah carqaladaha ugu badan ee aanu la kulanno haddaanu nahay wasaaraddii u xil saarayd baaritaanka macdanta iyo shidaalka waxaa carqaladaha ugu badan ma aha shacbiga ma aha reer miyiga ma aha waa waxgaradka waddanka macalasaf ashadiid oo u arka sheega xaqiiqaynu dee ku wada hadlaynaa waayo aqoon-yahankiibaa ayaa meesha jooga dhibaatooyinna haystaynu doonayna inaynu xallinno wuxuu odhanayaa marka meeshaa la yimaado waxaa imanaya wixiinii oo dhan dad kalaa qaadanaya oo inta halkaa lagu taagaabaa reer hebel iyo reer hebel ka faa'iidaysanaya war faa'iidada weyn ee ku jirta nin qof wax waayey baa laga yaabaa faa'iidadii waddanka ugu jirtay faa'iidada weyn ugu jirtay iyo mashruucii waddanka faa'iidada ballaadhan ugu jirtay inuu ishortaago oo isku hortaago wax la afuufo war waddanka waxaanu ugu talagalnay inaynu wax ka soo saaranno goob kastoo ay tahay in wax laga soo saaro lagana wada faa'iidaysto dadkii markaan loo heshiino oonu meeshii qalabkayga geysano oonu isdhaahno qoda dhibaatada ugu badan ee naga hor timaadaa mid magaalada jooga oo faamiligaabaa ay qaar la hadlaan wuxuu idhaahdaa shirkadaasi timi meeshuu liisanka dowladdu siisay dheemanteennii bay guranayaan dahabkeennii bay guranayaan dabeedna nimankii deegaankaaba ku urura had iyo jeer shirkadaha marka meelo badanoo nuuga gurray way jiraan dadka waxaanu ku wacyigelinaynaa nin meel ku qayilaya ayuu idin kicinin faa'iidadii la soo saari lahaa iyo dalka horumarkiisii iyo cashuurtii dowladdu heli lahayd idinkoo shaqaale badan ka heli lahaa idinkoo deegaan ahaan wixii laydinku sharcigu idiin ogoliya heli lahaa ha maqlina dadka waanu idinku wacyigelinaynaa waayo isqabsiga la isqabsadaa shirkadiina way ku khasaaraysaa idinkuna waxba heli maysaan ninkii idinla soo hadlayo idinku lahaa shirkadaha ka eriya waddankana waxaa la yaala wax faa'iido oo idiin hayaa ma jirto bartiinbuu isagu iska fadhiyaa cidda wax ku waayeysaa waa dalkoo dhan gaar ahaan shirkaddii iyo idinkii iyo dowladdii intuba way ku khasaarayaan run ahaan qalab casri oo macdanta lagu baadho dalka la keenaa waa suurtagalnimada in la helo lana ogaado tayada dhagaxa iyo nooca macdanta ee Soomaaliland ku duugan waxaana taasi lagaga maarmayaa qalabka ay shirkadaha shisheeye dalka la yimaadaan kuna baadhaan noocyada kala duwan iyo macluumaadka macdanta taasi oo aanay cid la wadaagin wixii alaabo ee macdanta la xiriira aanu doonayno inta aanu qofku imanin inuu yimaado oo yiraahdo alaabta noocaas soo socota aanu siino registrationkii warqaday ahayd inay alaabta noocaasi hebel u imanayso hawsha noocaan uu ku qabanayo si loola socdo qalabka macdanta laga shaqeeyo ee waddanka yaala wax soo saarka tacabka macdanta oo bulshada Soomaaliland la fahamsiiyay waxay door muhiim ah ka ciyaaraysaa in bulshadu ay isku filnaansho ka gaadho sidii ay dhaqaale buuran u heli lahaayeen taasina waxay ku iman kartaa horseedka ay xukuumaddu ka noqonayso alxamdulilah maamul kastoo yimaada oo wasaaraddan iska bedela xidhiidh fiican ayaanu leenahay si maangalo oo wanaagsan oon u wada shaqaynaa haddii la qiimeynayo haddii maxay tahay la sahaminayo intaba isku xidhnaan fiican ayaanu leenahay
waxaan si hadda soo yara jeedin lahaa in kulley wasaaradda kulley si gaaran waan ugu sheegi doonaa aan kula talin lahaa in wasaaradda laftarkeedu maadaama aanay jirin maalgeliyayaal fiican oo inoo imanayo oo wax qodayo oo de wax laga faa'iidaya aanay jirin in wasaaradda laftarkeedu ay samayso system ah in iyadu soo saarto macdanaha nooca fudud gaar ahaan kuwa Jamestownka ee ay dadkuba ku hawlan yihiin taas systemka ay ku samayn karaan oo kale waxa weeye tusaale ahaan 6 gobol ee waaweyn in gobol walba uu sameeyo group macdan soo saarayaal ah marka gobol walba waxa laga helaa macdana gaar ah oo Jamestownkaas groupkaasi waxaan rajaynayaa haddii matalan gaarigooda iyo kompresorkooda iyo shaqadooda iyo daryeelkooda la isugu daro oo isuduuha gobolkaasi uu maamulo tiyo uu jiro kormeer guudna in gobol walba laga soo saari karo macdan sanadkii markii la isu geeyo wax badan wax ka tari karta dhaqaalaha wadankeena oo kor soo qaadi karta oo ciidamadeena iyo waxbarashadeena iyo wax badan wax tari karta siyaasadda xukuumaddan uu madaxweynaha u yahay Muuse Biixi Cabdi waxa weeyaan inaynu la soo baxno si dhaqaalaheena wax weyn looga bedelo inaynu macdanta dalka ku duugan ee faraha badan laga warhayo aynu la soo baxno siyaasadda dawladda Soomaaliland macdanta qaranka waxa u xil saaran wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland waa maxay fariinta ugu dambaysa ee shacabka iyo dadka daneynaya maalgashiga macdanta ay u dirayaan ka wasaarad ahaan ka waax ahaan waanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo doonaysa inay khayraadkeena aynu Soomaaliland haysano ee macdanta ay maalgashato haddii ay muwaadiniin iyo haddii ay muwaadiniin iyo ajaanib wada socdaba waxaanu sidoo kale aanu jecelnahay inaanu u sheegno dadka nasiibka u helay in deegaanada ay degan yihiin macdan qodista laga bilaabayna inay soo dhaweeyaan oo ay shirkadaha inoo imanaya investmentka sameynaya ay ka faa'iideystaan oo halka ay ka timaado win-win scenario oo dadkii deegaankuna faa'iidaan oo haday shaqo gelin noqoto iyo haddii ay horumarin deegaan noqoto ay faa'iidaan qarankana uu dakhli uga soo xiroodo dadka dhaqaalaha gelinayana de donation iyo mucaawimo maaha waxay ka doonayaan faa'iido iyaguna ay ka faa'iidaan waxaan kaliya doonayaa inaan kusoo gabagabeeyo reer Somaliland in aynu isku tashano oo macdanteena dalkeena ku jirta xukuumad iyo maxay ahayd shacabba aynu isfahano dadka markaa ilaahay noo soo diray doonaya inay markaa maal gashadaan inaynu soo dhaweyno sidii horeba laynagu yaqaanay inaynu soo dhaweyno maxay ahayd dawladana lala shaqeeyo khayraadkeeda dalkeena ku jirana sidii aynu u soo saar lahayn aynu gacmaha isku qabsano waxaan ugu baaqi lahaa dal kale in dadka maaragtay ay hadiya jeer ay u guntadaan inay u dhaqaaqaan inay dalkeena macdinta iska faa'iideystaan oo matalan kabariyada localkii ay samaystaan kuwa la yiraahdo partnerska ee dibadaha wixii aan iyagu qaadi karayna ay la kaashadaan kabariyo dibadda ah oo aynu macdinta qodisteeda aynu bilaabano runtii aad baan soo dhaweyn lahaa waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa in deegaanada aynu u sheegayno in aynu wixii dhulka hoostiisa ku jira xukuumaddu doonaysa inay u soo saarto dadkeeda si loo helo nolol ka wanaagsan tan aynu maanta ku jirno waxaa ka mid ahaa halkudhigiyadii kulmiye markuu kaambeyn ku jiray berri maanta ka fiican dhaqaale kaa maanta jira ka fiican si loo helo macdanta dhulka waynu kala soo baxaynaa waxaanu ka rajaynaynaa dhaqan baa jira aan wanaagsanayn oo reer waliba ama mid baa meelo ootay ama reeraha meel waliba degaankii uu odhanayo halkan anigaa leh anigaa degan taaban maayo ama anigu cid aan ahaynba wax kala soo bixi mayso taasoo aan suurtagelaynin cidda ugu horeysa waxay Soomaalidu tiraahdaa dheri nin u dhow baa laf kala baxaa inta aan la soo saarin baaritaanka iyo shaqadiisa ay waxiisa waxa ka faa'iideysanaya ugu horeeya waa deegaanka dadkii ilaahay uu meesha dhigay marka la soo saarana horumarka qaybtooda ku yeelanayaan oo deegaankaas dawladda dhexana waxbay leedahay gobolku waxbuu ku leeyahay faa'iidada ka soo baxda deegaankuna waxbuu ku leeyahay marka si aynu wixina ula soo baxno waa inaynu fududayno shaqooyinka cidda gacanta ku haysa iyo shirkadaha inoo imanaya ee doonaya inay maal gashadaan waa in hareeraha la taago
waa in la taageero shaqaalaa laga helayaa qandaraasyaa laga helayaa wax soo saar baa laga helayaa cidda ugu horeysa ka faa'iidaysaana waa deegaanka fursadaas waxaan doonayaa inaan maanta uga faa'iidaysto inaan mujtamaceena u sheego in far keliya fool ma dhaqdo xukuumaddu keligeed dusha ka keeni mayso ama intay ul sidaa ku tiraahdo wax waliba isbedeli maayaane qaabkii nolosheenna iyo isu bedeli lahayd ee dhaqaale loo heli lahaa ee caafimaad loo heli lahaa ee iskuulla loo heli lahaa ee nolol loo heli lahaa waxa weeyaan inaynu la soo baxno hantideenna baryahan waxaa ka socda dalka sahan macdaneed iyo mid shidaal oo shirkado ajnabiya ku jiraan oo ay heshiis kula jiraan wasaaradda macdanta ee qaranka oo saaminaysa shidaallo gobollo badan macdantana dhowaan bilaabi doonta dadweynaha waxaan ku boorinayaa waxaynu u baahannahay kow dadka aynu heshiiska la gallo ee weliba waxay noo soo saaraya ee dalkeenna maalgelinaya inaynu kula dhaqanno niyad wanaagsan iyo nabad iyo wada shaqayn iyo inaynu u muuqano dad shaqaysano inay wax soo saaraan doonaya dadkana ay iskaashadaan waxyaalo badan inaynu ka fogaano oo ay ka mid tahay cunfiga oo ay ka mid tahay maaragtay howlaha is-hortaagooda siyaalo badan u iman karta oo ay ka mid tahay aqoon inaynu kororsanno qofkii aad la shaqaynayso haddaad tahay mid riiga qoda ceel qoda aad taqaano haddaad xafiis joogto aynu ku dadaalno inaynu shaqadeenu noqoto standardka caalamka waynu gaari karnaa marka hawshaasi maalgashiga dadka adduunkii maanta wuxuu isku dhaafayaa oo loo tartamayaa meelaha la maalgashanayo